Jungle. Audio Jungle. kulan wacan daawadayaal kusoo dhawaada shabakada wararka 24 akhbaaraadka waaweyn ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya aan xiligan idin haynan waxaa kamid ah maamulka Ahlus Sunna ayaa ku dhawaaqay go'aan ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya. Qorshaha dowladda federaalka ah ee shirka Dhuusamareeb ayaa ah in shirkaasi daafuraan culimada kale ah Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Nuur Baruud Gurxan, waxaana rabitaanka dowladda ku gacan saaray maamulka Ahlus Sunna ee iyagu ka taliya deegaanada maamulka Galmudug. 22 ilaa 23 bishan shir culimo udiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca uga socday magaalada Dhuusamareeb ee xaruntu ah maamulka Galmudug, isla markaana uu shir gudoominayay hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed si kulul loogu eedeeyay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ahlus Sunna ayaa sheegtay in deegaanada Galmudug aysan u ogolaan doonin in la keeno dad ay ku sheegtay aasaasiyaashii ururka Al-Shabaab oo ay ugu horeeyaan Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo dalada uu hogaamiyo ee lagu magacaabo Hay'adda Culimada Soomaaliyeed. Warqadda ka soo baxday Ahlus Sunna ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay guud ahaan ka baxday heshiisyadii lagu galay dalka Djibouti, isla markaana aysan ogolaan doonin Ahlus Sunna in ciidamo ka socda AMISOM iyo dowladda dhexe la geeyo magaalada Dhuusamareeb ee xaruntu ah maamulka Galmudug. Ciidamada la isku dhafay ee ka howlgala magaalooyin ay ka mid tahay Dhuusamareeb wixii dhib ah oo ka yimaada ayay sheegtay in Ahlus Sunna ay qaadi doonto dowladda dhexe ee federaalka ah ee Soomaaliya. Ahlus Sunna ayaa dowladda federaalka ah ku eedeysay inay balmartay dhaqangelinta heshiisyadii ay la gashay maamulka Ahlus Sunna. Saraakiishii khibradda u lahaa la dagaalanka Al-Shabaab ayay sheegtay Ahlus Sunna in meesha laga saaray taas beddelkeedana hoggaan looga dhigay ciidamada dalka loo dhiibay shakhsiyaad xiriir la leh Al-Shabaab sida ay hadalka u dhigeen. Sidoo kale dadka sameynaya soo xulidda doorashooyinka ayay sheegtay inay u badan yihiin odayaal u hoggaansamay amarkii ka soo baxay Al-Shabaab markii loo yeerana u tagi kara Al-Shabaab sida ay sheegeen. Dowladda federaalka ah ayay ku eedeeyeen Ahlus Sunna inay horey u curiyaamisay dhaqangalka heshiisyadii lagu galay dalka Djibouti. War-saxaafadeedka Ahlus Sunna ayaa walaac looga muujiyay in odayaashii iyo ergadii ka soo qayb qaatay dhismaha maamulada dalka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay u hoggaansameen amarada Al-Shabaab oo doonaya in doorashooyinka dambe loo soo xulo xubno ay iyagu taabacsan yihiin. waa hagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan shabakada wararka 24 hamogaan daawada inaad subscribe dhahdo channelkeena aad furato gambaraalka isla markaana aad la sii wadaagto asxaabtaada si ay iyaguna u helaan xogihii ugu dambeeyay oo ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markana haddii aan eegno dhanka maamulka Jubbaland, walaac xooggan ayaa laga muujinayaa ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoo madaxweynihii saddexaad lagu doortay magaalada Kismaayo ee xaruntu ah maamulka Jubbaland ayaa haddana magaaladaasi waxaa laga soo sheegayaa walaac baaxsan oo ku aadan ammaanka magaaladaasi. siyaasiga Cabdinaasir Seeraar ayaa wuxuu noqday madaxweynihii saddexaad ee lagu doorto magaalada Kismaayo ee xaruntu ah maamulka Jubbaland, iyadoo ay ka sii horeeyeen laba doorasho oo ka dhacday magaaladaasi. wararka ayaa intaasi ku daraya in xubno kale ay doonayaan inay ku dhawaaqaan inay yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland, taas ayaana abuuraysa cabsi laga qabo deganaanshaha magaalada Kismaayo. macadda qaabka ay ku timid doorashada madaxweynaha saddexaad ee maamulka Jubbaland oo ka dhacday magaalada Kismaayo, taasi oo lagu doortay Cabdinaasir Seeraar. horey magaalada Kismaayo waxaa uga dhacay laba doorasho kuwaas oo lagu kala doortay madaxweynihii hore ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo xildhibaan Cabdirashiid Xidig. dowladda Soomaaliya ayaa horey u shaacisay in aysan aqoonsan doonin natiijada doorashooyinkii ka dhacay magaalada Kismaayo, kuwaas oo ay ku tilmaamtay in dadka madaxweynayaasha loo doortay iyagu iscalayma saareen. waa hagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan shabakada wararka 24 hamogaan daawada inaad subscribe dhahdo channelkeena oo aad furato gambareelka isla markaana aad la sii wadaagto asxaabtaada wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya. markana haddii aan eegno dhanka Somaliland, ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa ka hadlay kulan uu magaalada Hargeysa kula yeeshay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa golaha ammaanka uga warbixiyay safarkii uu bishii hore ku tagay magaalada Hargeysa. James Iswaan ayaa golaha u sheegay inuu madaxweyne Muuse Biixi kala hadlay sidii dib loogu furi lahaa wadahadallada muddada badan qaatay ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya. James Iswaan ayaa ka dhawaajiyay in wadahadalladaasi la sii wado si aan loo lumin dadaaladii ay ku bixiyeen xukuumadihii ka horeeyay madaxda maanta joogta.
waxaan booqday Somaliland 27 ilaa 28 Juulaadii la soo dhaafay waxaana la yeeshay madaxda maamulka Somaliland kulamo isbarasho iyo wada tashiye ahaa ayuu yiri James Iswan wuxuuna intaasi ku sii daray waxaan ku dhiirigeliyay in la sii wado wada hadallada u dhaxeeyay maamulada Somaliland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si guul looga gaaro ayuu sheegay James Iswan waa hagaag daawadayaal wali waxaad la socotaan shabakada wararka ee 24 markana haddii aan eegno akhbaaraadka caalamka ugu waaweyn FBI-da Mareykanka ayaa ku raad joogtay rag dhacay malaayiin dollarka Mareykanka ah hay'adda FBI-da ee dalka Mareykanka ayaa dacwad ku soo oogay 80 qof oo burcadda casriga ah dadkaasi ayaa intooda badan waxa ay yihiin muwaadiniin u dhashay dalka Nigeria iyaga oo dadkaasi qayb ka qaatay inay malaayiin dollar dhacaan ayuu yiri xiriirlayaha dalkaasi Mareykanka inkasta oo dadka eedahan loo jeediyay iska fogeeyeen inay dambiyadaasi galeen haddana hay'adda baaritaanka ee dalkaasi Mareykanka ee FBI-da ayaa dabagal ku haysa booliiska dalka Mareykanka ilaa iyo hadda waxa ay qabteen 12 qof halka 12 qofba laga qabtay gobolka Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka hay'adaha Mareykanku waxa ay sheegeen inay dhacdadani tahay tii ugu weyneyd ee ka dhacda taariikhda dalkaasi Mareykanka hay'adda dambi baarista Mareykanka baaritaankan ay amurtan ka wado ayaa qayb ka ah dadaalada lagu burburinayo shabakada dambiyada ayuu yiri xiriirlayaha dalkaasi Mareykanka Nikki Hanna FBI-da dalkaasi Mareykanka ayaa waxay baaritaanka kiiskan bilowday 2016 markii Akuana Bank marar badan lacago laga qaatay muwaadiniintii lahayd akoonadaasina ay hay'adda sharciga ku soo wargeliyeen in lacagahoodii ay maqan yihiin guud ahaan waxaan inta ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya iyo caalamka hamugaan daawadayna subscribe dhahdo channelkeena aad furato gambareelka isla markaana la sii wadaagto asxaabtaada wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya iyo caalamka